سفارة دولة إثيوبيا يقول لها مقدشو أيها عشونتي مدحدة سرية دولة فدرالك أهي الصومالية هي الدبلوماسيين تعالم كأجوغ الصومالية وحانا مناسبة قصة بسنة حسكة لباتنك جنبوط وأهمركي دولة إثيوبيا كاتي كوحيه نبتقلية درادة كوذي قدها إثيوبيا إيو حكمكي كالتالسكاها من قيست حيلة مريم إثيوبيا ayaa sidoo kale doonaysa inay si abaqaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay Soomaaliya taa oo ayna qayb ka ahayd munaasabada safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa ayaa ka sheekeeyay horumarka dawladda Itoobiya ka sameysay arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka dawladaha dariska ah ee ay Soomaaliya ka mid tahay iyo dib u kabashada xukunkii kale taliska ahaa ee muddada dib u dhigay Itoobiya waxaa farxad weyn inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan 27aad ee ku beegan 28 bisha May waa maalin weyn oo xusuus badan nagu leh waa maalintii dhiiga caabihii Mingisto Haile Mariam dalka laga eriyay isaga iyo xukuumaddiisa halkan wuxuu ahaa mid soo socday 17 sano oo ay bilaabeen dhalinyaro ka carartay cadaadiskii xukuumaddii gumaysiga ahayd ee hogaaminayay Mingisto Haile Mariam halkan wuxuu ahaa mid dhiig fara badan iyo hanti fara badan loo waray 28 May waa maalin baaldaha ku leh taariikhda Itoobiya waa maalin weji cusub ku bilowday xiriirka labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa la midoobaan ah in 2007 safaaradda Itoobiya ay ahayd safaaradii koowaad ee dalka dib looga furay xiriirka labada dalna uu soo wanaagsanaanayay maalmahan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo asna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay Itoobiya inay ka soo kabatay xukunkii kale taliska ahaa muddadii dunida uu ka reebay waa maalintii dalka laga saaray Mingisto Haile Mariam iyo dargigii nidaamkan hadda jira uu soo bilaabmay waan qirayaa waa runtii waxaan leeyahay colaadu ha ka dhamaato geeska Afrika nabadi ha u soo heeto geeska Afrika dhammaanteen arrinta waa inaynu maskaxda ku qabsannaa munaasabada 20ka Gembood oo 28ka May sanad kasta Itoobiya ay xusto ayaa munaasabadan loogu dabaaldegayay waxa joogay مسؤولين وكمل ها رئيس الوزراء كحجين كصوماليا وسيرو سفيرو قدوميها قبل كبنادر سراكيل عيدا هي مسؤولين كلا أو حس كان لقوا مرتقاضي سؤال معالي محمود تلفزيون كقرن كصوماليا مقالة مقدشو